magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa xalay mar kale ka dhacay dagaal u dhaxeeya ciidanka maamulka Puntland iyo kuwa daacadda u ah hogaamiyaha BSF Maxamuud Ismaan Cabdullaahi Diyaano. shalay waxaa la gaaray xabajoojin ay garwadeen ka ahaayeen isimada dhaqanka iyo culumooyinka magaalada Boosaaso. dhinaca maamulka Puntland waa soo dhaweeyeen xabajoojintaas shalay waxaana u hadlay wasiirka amniga Cabdisamad Galan, halka dhinaca BSF ay soo saareen qoraal ayna soo dhaweeyeen tallaabada isimada dhaqanka iyo culimada magaalada iyagoo ballan qaaday inay dhankooda xabada joojin doonaan. xalay 12 habeenimo dhinaca hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani waxaa lagu eedeeyay inay magaalada soo geliyeen ilaa 40 gaari oo nooca dagaalka ah iyagoo 3 jiha ka weeraray xarunta ciidanka BSF. duqeyn xooggan ayay geysteen xalay ciidanka daacadda u ah hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. marka la eego noocyada hubka ee la isticmaalay dagaalkii xalay uu ku xoog badnaa kii dhacay 2 maalmood ee la soo dhaafay. qasaare xoog leh ayaa laga soo tabiyay magaalada Boosaaso. xalay waxay ahayd markii ugu badneed oo ay dadka magaaladu barakaceen. lama yaqaano waxa Saciid Cabdullaahi Dani iyo kooxdiisa ku qasbay inay ka baxaan ballantii isimada iyo culimada oo ay jabiyaan xabajoojintii la gaaray. sida ay ku warameen ilo muhiim oo ku sugan magaalada Boosaaso, dhinaca BSF waxaa jiray dareen ku saabsan inay mar walba doonayaan dhinaca kale inay duulaan gaadmaha soo qaadaan. foojignaan ayaa dhankooda ka jirtay waana sababta keentay inay iska caabin xoog la kala hortagaan ciidankii xalay sida gaadmada u soo weeraray. ciidanka xalay qaaday dagaalka gaadmada ah waxaa la sheegay in qaarkood ay lug ku galeen dhinaca xarunta BSF laakiin ay kala soo laabteen natiijo aan fiicnayn. BSF oo iyadu u muuqatay inay gacan sarreysay 2 maalmood ee la soo dhaafay xalay waxaa gaaray qasaaro weyn ayay leeyihiin dadka ku sugan magaalada Boosaaso. dad badan waxaa la yaab ku noqotay in hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani iyo wasiiradiisa ku sugan magaalada Boosaaso inay ku ballan furaan odayaashii iyo isimadii deegaanka ee shalay ku guuleystay inay xabajoojin keenaan. saakay qoraal lagu daabacay bogga rasmiga ah ee maamulka Puntland ku leeyahay shabakada Facebook waxaa lagu sheegay inay weli fursad siinayaan wada hadalka, taasoo la yaab ku noqotay dadkii marqaatiga u ahaa duulaankii xalay ee magaalada Boosaaso. BSF oo iyaduna qoraal soo saartay waxay sheegtay inay ka xun tahay inay dhinaca ka soo horjeeda ka baxeen ballantii xabajoojinta. waxay sheegeen inay weli xaruntooda ku sugan yihiin oo isdifaacayaan. cabsi xoog leh ayaa weli ka jirta magaalada Boosaaso. waxaa laga cabsi qabaa in mar kale dhinacyadu isku laabtaan. aaminaadda xabajoojin kale hadda waa yar tahay. shalay waxaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada Nairobi hogaamiyaashii hore ee Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo Cabdiraxmaan Faroole iyo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. waxay soo dhaweeyeen xabajoojinta waxayna ku baaqeen inaan mar kale lagu dul dagaalamin shacabka magaalada Boosaaso. waxay intaa ku dareen in cid walba oo jabisa xabajoojinta loo arki doono dagaal oogayaal, lamana yaqaano waxa ay ka dhihi doonaan in dhinaca hogaamiye Saciid Cabdullaahi Dani ay jabiyeen xabajoojintii shalay iyagoo magaalada soo geliyay ku dhawaad 40 gaari oo nooca dagaalka ah sida ay ku warameen dadka ku sugan magaalada Boosaaso. odayaashii dhaqanka iyo culimadii shalay galay waanwaanta ayaa laga yaabaa inay maanta soo saaraan warmurtiyada ay kaga hadlayaan cidda jabisay ballantii xabajoojintii shalay. qasaaraha ka dhashay dagaaladii dhowrka jeer ka dhacay magaalada Boosaaso ayaa is soo taraya sida ay sheegayaan dhaqaatiirta magaalada. hogaamiyaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo kooxdiisu 3 dagaal oo ay qaadeen midna kuma guuleysan inay soo afjaraan BSF, lamana yaqaano inay weli u ooman yihiin inay dagaal ku soo gabagabeeyaan xaaladda. maxay kula taadiga